maxaa ka jira in xukuumaddu xaraashtay inta badan intii yarayd ee ka harsanayd dhulkii danta guud ee ay ka tagtay dowladdii hore ee Soomaaliya? halkani waa xeradii ciidanka ee gantaalaha. soo soco waa garoonkii kubadda kolayga ee dhalinta. dib u yaro noqo waa xanaanadii xaafadda Jigjiga. soo dhaadhac waa mid ka mida guryaha bangiga ee State House-ka u dhow. soo soco waa xaafadda loo yaqaan ilaalada ee maxkamadda ka dambaysa. halkanina waa taliska ciidanka asluubta. soo dhaaf waa laynkii booliska. halkanina waa xanaanadii dhexe. in yar soo soco waa baarkinkii suuqa waaheen. dooxa ka talow waa xeradii loo yaqaanay warshadda kabista. hore u sii soco halkanina waa xerada gaas emta loo yaqaan ee garoonka diyaaradaha. dhammaan goobahan iyo qaar kale ayaa la hadal hayaa in xukuumaddu iibisay. inta badan waaba la dumiyey, qaarkoodna saxaafadda laga sheegay, qaar kalena waa la hadal hayaa. gaas emti aynu dib uga soo noqonno. goobtan kale waa xaafaddii u dhoweyd taliska booliska. mar kale dib u sii noqo waa xaafaddii loo yaqaanay Soomaali weynta ee ku xigtay xaruntii waxbarashada ee gobolka Maroodijeex. labadan goobood dadkii deganaa waa laga raray. marka hadalhaynta midiba dhan ujeeddo laga reebo, saxaafadda kamaynaan maqal iyadoo dowladdu sheegtay waxa ay la damacsan tahay. haddaba iyaduna ma iibba mise ujeeddo kale ayaa lala damacsan yahay? inagoo soo taagan subxaan allah oo wadaadkeedii oo caalimkeedii oo maxay suldaankeedii oo wasiirkeedii oo maxay ayaa waxaynu ku talagalnay koox koobani inay dhulkii ku kala tagto. maxjarkii Jaabiri, xeradii loo yaqaan xerada guutada, gurigii dhaqaalaha guriga iyo meelo kale oo berbera ah ayaa iyagana hadalhayntoodu jirta. bardaha Ceergaabo ayaa isaga laftiisa sababta loo wareejinayo ee runta ah dad badani hadal gelinayaan. si tii loo helo waxaan ka ilaaliyay in la dhisaba shacab eeriyada wax laga dhiso oo dadku ay ka dhistaan. aan ka ilaaliyo si in dawladduuna intifaacsataan aanu ku tala jiray. haddaba maxaa ka jira dhulkan in la iibiyey? waxaana moodaa inay weli ku dhaqmayso sidii dowladdii kacaanka ee markaa xukuumadda joogtay madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay awood u lahaayeen inay dadkana hantida ka qaadaan oo hanti guud ka dhigaan. hantida guudna cid ay doonaan ay siiyaan. sidee u dhici kartaa dhul qiimihiisu kor u dhaafayo $100 milyan hadda waa $100 milyan in si hoose oo aan la ogeyn uu gacanta dowladda uga baxo? golaha wakiilada, dowladaha hoose, xisbiyada, ururada siyaasadda, waxgaradka iyo guud ahaan bulshada maxay tahay kaalinta uga bannaan ilaalinta dhulka danta guud? mase la odhan karaa way gabeen kaalintoodii? qolada dowladda hoosena waxaa saaran in aanay sharciga siin. faylkaasi uu ka hor imanaya, shaki la'aan uu ka hor imanaya. haddaad siisaan mulkiyadda ood hadhowna ummadda tidhaahdaan wixiina idin ilaalinaynaa, taasi waxay idinku noqonaysaa hal xidhaale. haddii dhulkaasi sifaha uu ku baxay yahay mid sharciga baalmarsan, sharci ahaan mustaqbalka dib ma loo soo celin karaa? cid kasta oo hantideeda gelinaysa meel ummaddu ay wada leedahayna waynu uga digaynaa. waayo maalin baa iman doonta la xisaabtamo oo dadkani iyo dowladnimadoodu ay taabo gasho. xogtii markaanu helay waxaan ku kaabadii iyo wixii la dhigay ee block ka mid ah sharciyadii loo samaystay ayaanu cagaf gelinay. isku dhac weyn baa runtii ka dhacay oo waxaan ku muxuu ahaa dareenkiisa lahaa. marka si hoose loo dhigto, magaalooyinka dalku ma waxay u baahan yihiin dhul dan guud oo la iibiyo mise dhul dan guud oo loo soo iibiyo? inteed ka taqaanaa hay'adaha dowladda ee kirada ku jira iyo kharashaadka ku baxa? haddiiba loo baahdo in dhulka la iibiyo oo si furan loo xaraasho, dhaqaale intee lag baa ka soo hoyan lahaa magaalooyinka ay ku yaalaanse maxay u qaban lahaayeen? magaalooyinkeennu ma u qaabaysan yihiin qaab nolosha iyo horumarka caawinaya, dibse ma loogu qaabayn karaa? maxaa ku riixaya ganacsatada in ay dhulkii la wada lahaa si hoose u iibsadaan iyagoo heli kara dhul kale oo ay iibsadaan oo xalaal ah? inteed ka xusi kartaa siyaasiyiinta iyo ganacsatada ka fara qabsaday dhulkii ummaddu wada lahayd, maxaase
loogu yeedhi karaa ma xusuusataa abaalkii hagardaamada dhalay waa kuwee mas-uuliyiinta iibiya dhulka danta guud qodobadan iyo qaar kale ayaynu war tibaax iyo faallo intaynu ka gaadhno ka sheegi doonaa haddii xagga ilaahay laga helo wixii xog ah ama aqoon ah ama marag muujin ah ee aad nagu biirin karto noogu soo hagaaji ciwaanada shaashadda ka muuqda qormaduna waa looma ooyaan 2 xisaabtu ha dambaysee xogta ha la hayo sidii aynu qormadii hordhaca ahayd ku bilownay halkani waa dhul baaxad weyn oo ah xero military oo loo yaqaan xerada gantaalaha waxa ay 300 oo tallaabo dhanka waqooyi ka xigtaa wadada 150 qaybteeda galbeed waxay ahayd mid ka mid ah xeryaha ay degganaayeen ciidamada militariga Somaliland dhulka baaxadda leh si hoose oo aan bulshada loo cadayn ayuu gacanta dawladda uga baxay ciidamadii xeradan deganaa waa laga raray sida aad bidhaanta ka arki kartana guryihii ka dhisnaa jiingadda ayaa laga qaaday dayrna waa lagu soo wareejiyey 24kii Julaay sanadkan 2023 ayuu Maxamed Sidiiq Dhamme oo xisbiga wadani ka tirsanay ciwaankiisa Facebook ku baahiyay eedda ah in dhulkan la iibiyey mar kale mudanaha golaha deegaanka ee Hargeysa Yaasiin Cumar Yare ayaa isna dhankiisa xaqiijiyay in xerada gantaaluhu gacanta dawladda ka baxday taa gantaalaha hal nin baa laga iibiyey sida la sheegayo tanna dhowr nin baa laga iibiyey labadoona waa xaqiiqa mushkiladuna waxa weeye mujtamacii waxaan lahaa ayaa daawanaya oo aan ka hadlahayn mar kale ayaa qoysaska la kala yiraahdo ilmo biixi Yoonis iyo ilmo xaaje aadan qalinle oo sheegtay in xeradu beertoodii ahayd ay iyaguna si faahfaahsan horyaal ugu sheegeen in xukuumaddu dhulkan iibisay Sakariye biixi Yoonis oo labada qoys u hadlayay waxa uu xaqiijiyay iibka dhulkan cidda iibisay ganacsadaha laga iibiyay iyo waxyaalo kale oo dheeraada waxaan halkan isugu yeernay waxa jirtay dhul aanu leenahay oo ku yaala degmada Ibrahim Koobur xaafadda Jigjigeer qayb kamida oo beeraha iyaga iyo halkan aanu dhex taaganahay oo loo yaqaan dadka ay u yaqaanaan gantaalaha laakiin anagu aanu naqaano biixi Yoonis xajaada qalin dhulkaasi oo qayb kamida ay si ku meel gaara ay u deganaan jireen ciidanka qaranka goobta madafiicdu oo kamida qaybaha aan soo sheegay labadeeda beerood ayaa waxa dhacday in muddo 2 bilood ka hor laga iibiyay ama 2 bilood iyo barmeelahaas ah nin ganacsada ah oo reer Djibouti ah isla markaana reer Hargeysa ah oo reer Somaliland oo caan ah oo magaciisana la yiraahdo Axmed Cismaan Samatar dadkuna inta badan ay u yaqaanaan midh waxa dhacday intii uu wada hadalku noo socday uu dayray isagoo Djibouti jooga waanu la hadalnay wuxuu noo sheegay inaanu dayrkaasi isagu waxba ka ogeyn laakiin waxa noo cadaatay inuu dayrka isagu lacagta bixiyay oo dayray haddaba waa ayo mas'uuliyiinta dhulkan iibisay wuxuu noo sheegay in dawladda dhexe ka iibisay oo ay ka iibiyeen guddi marka anagu ma garanayna uu noogu sheegay wasiirka hawlaha guud wasiirka maaliyadda xisaabiyaha guud hanti dhowrka 5 nin oo noocaas markii aan weydiinay inuu ku nidhi maxaa lagaaga iibiyey wuxuu yidhi aniga qolo waxa ii timid dilaaliina oo magaalada jooga oo wixii soo iibisa waxa ii sheegeen in dhul la iibinayo dabeedna guddigaas ay geeyeen guddigaasi markaa meel hoola bay fadhiyeen markii aan wada hadalnay waxa la ii sheegay in dhulkaasi yahay dhul dawladdu leedahay lana iibinayo sida Sakariye biixi Yoonis sheegayo ganacsada midhaq waxa uu u sheegay in dhulkan ay ka iibiyeen guddi ka kooban 5 xubnood haddaba guddidan
siday wax uga run yihiin xaqiijinteedu waa war kale laakiin gacanteeda waxa soo galay 20 waraaqadood oo ka mid ah warqadihii lagu iibiyey dhulka danta guud xilligii xukuumaddii Siiraanyo guddida iibisay cidda laga iibiyey qiimaha la siiyey sharciga loo raacay iyo waxyaabo kale oo la mid ah ugu horreynse aan isbarbardhig ku sameeyo labada guddi inay isleeyihiin iyo in kale warqadahan waxa ku qoran guddi 5 mas'uul ka kooban oo loogu yeeray guddida iibka hantida qaranka guddida Sakariya sheegayo in ay miriq gantaalaha ka iibiyeen iyo guddida warqadahan ku qorani xagga xilalka way isleeyihiin marka laga yimaado xisaabiyaha guud wayna dhici kartaa in la isku qalday hanti dhowraha guud iyo xisaabiyaha guud haddaba marka intan oo qof arrintan sheegtay marka ciidamadii goobta yaalay laga raray marka guryihii ku yaalay jiingada laga qaaday marka la sheegay in ganacsadihii iibsaday deer ku wareejiyay intan oo dhammi miyaanay caddayn u ahayn in goobtan la iibiyey sidaas oo tahayna wasiirkii arrintan qaabilsanaa ee wasaaradda howlaha guud mudane Mustafa Maxamuud Cali Bile sidan ayuu ina leeyahay madaxweyne Muuse Bixi waa madaxweynaha kaliya ee aan dhul dawladeed bixin iibin cidna u hibayn si kastay tahayba lixdaas sano xukuumadda jirtayna wax dhul dawladeeda lama iibin iminkana lama iibinayo lamana iibin doono inta xukuumaddani joogto warsuuqu iska badan yahay waa ku tiri kuteen laakiin ninka cadeynaya oranaya halkaas la iibiyay halkaas dawladdu lahayd isaga sheegi doona oo talow wasiirka ma waxa lagu yiri yaan afkaaga juuq laga maqlin yaraanteedii waxaan maqli jiray hees tiraahdaa eedoy uu qayliyaa eedoy uu qabaxtamaa ridaa qaloo qaribuu yidhaa qiiqu yuu bixin buu yidhaa waan raaciyo halhayskii caanka ahaa ee Maxamed Siciid Gees ee ahaa maxaa ku baxay boowe qaylada dadmuumini dayalkuma qarsoonte qadhadhiri maankii qariya xasuuste nin agoonku haday qalin khayrka mamaashi halkani waa garoonka kubadda kolayga ee dhalinta guud ahaan caasimadda waxa ku yaala 3 garoon oo kubadda kolayga ah oo dhammaantood ahaa kuwii ay samaysay dawladdii hore ee Soomaaliya waxaan u jeedaa garoon leh birihii iyo tarabunna la fadhiisto 3 garoon ayaa kala ah garoonka Timacadde garoonka dhalinta iyo garoonka kubadda kolayga ee Maxamuud Axmed Cali hadda waa magaalada dhan ee Hargeysa waxa jira sida la sheegay qaarkoodna aan arkay 2 ama 3 dugsi oo barxadooda ay ku samaysan yihiin biraha kubadda kolayga ogaalkayga iyo intii aan baadhayba hal garoon oo kubadda kolayga ah laguma soo kordhin intii Soomaaliland jirtay inkasta oo magaalada Hargeysa 4 goorlaab wax ka badan ay fiday waxaan filayaa inaynaan u baahnayn inaynu isu sheegno muhiimadda garoonada iyo jimicsigu u leeyihiin koriinka dhalinta la dagaalanka balwadaha horumarka isdhexgalka bulshada iyo guud ahaan caafimaadka isuna tilmaami mayno sida aan caruurteenu u haysan meel ay ku ciyaaraan aanse mawduuca hore ugu socdo garoonka dhalintu waxa uu adeegi jiray dhalinyar kala duwan oo ku ciyaari jirtay waxa uu sidoo kale fursad u ahaa hablaha oo iyaguna xilliyada qaar ku ciyaari jiray wareegyo dhowrana loogu qabtay dayac badan oo garoonka ka muuqda daraadeed waxa jiray qorshe la rabay in dib loogu dhiso sida Gallery Media baahiyayna waxa la sameeyay nashqadii garoonku u ekaan lahaa qandaraaskiina waa la bixiyay wax kasta oo uu ahaaba hadda garoonkii dhalintu wada lahayd waxa uu ku dhacay gacan gaar ah waxa qaatay mulkiilaha hoteelka Summertime Siciid Sheekh Cumar muddo imika laga joogo 2 bilood ayaa garoonkaasi wasaaradda howlaha guud iyo dawladda dhexe waxay u asteeyeen inay ka kireeyaan ganacsadahaas oo runtii maalgelin xooga ka sameeyay isla garoonka agtiisa fooq weyn oo runtii dhowr dabaqa amaan isleeyahay ugu yaraan ilaa 7 dabaqa ayaa waxaa laga dhisay oo la yiraahdo hoteelka Summertime garoonkaasi wuxuu ku hoos yaalay hoteelka ganacsaduhu wuxuu wasaaradda howlaha guud iyo cidii ay qusaysay u qorsaday warqad codsiga uu leeyahay garoonka iyo hoteelkaas oo chief waxay isku yihiin complicated
waxaa laga soo ogolaaday ganacsadaha in laga kireeyo garoonkaasoo dabeetana sifo sharciya ayaa loo soo siiyey garoonkaa inuu ganacsadahaasi manaafacadsado sidoo kale wasaaradda ku shaqada leh garoomada iyo wasaaradda howlaha guud waxay qorsheeyeen garoon kale oon isla goobtaa ka fogeyn oo garoon baaskida oo yeelan doonto xaafadda Ibraahim Koodbuur qof ka mudan in Siciid Sheekh Cumar oo laga kireyn laana anigu inaanu jirin baan umaleynaa waayo dad fara badan oo aan garanayn baa laga kireeyay oo talow curay mudnaanta halbeeg nooce ah ayuu saaray aan ka socda ee waa halkee goobta siika uu sheegayo ee uu leeyahay dhalinta ayaa garoon cusub loogu dhisayaa gidaarka boorkani ku dhegsan yahay waa garoonkii kubadda cagta ee dhalinta 12 Sebtembar 2023 ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu goobtan xaflad dhagaxdhig ah ku qabatay waxa la sheegay in halkan laga dhisi doono garoon cusub oo kubadda kolayga ah hadda u fiirso halkani waa garoonka kubadda cagta halkanina waa birta goolka ee gabaldhaca xigta kanina waa gidaarka agoomaha labada inta ka dhaxeeya la lahaa waxa laga dhisayaa garoon marka khariidada Google-ka laga cabiro birta iyo gidaarku waxay isu jiraan 26 mitir hadiiba birta garoonka laga durko 4 mitir imise ayaa soo haray 22 mitir intee ayay garoonka noqonayaan intee lagu ciyaarayaa inteese tarabuun laga dhigayaa garoonka laga soo rarayo oo aniga qiyaasteeda intiisa ku yari waa 48 mitir oo ballac ah dhererku intaa waa ka dheeryahay waxaana loo soo rarayaa 22 mitir dhanka kale garoonkii kubadda kolayga hortiisa waxa laga taagay board la sheegayo in laga dhisayo 10 guri ganacsi 10 guri ganacsi waxa ku qornaa inay maal gelinayso hay'ad uu leeyahay ganacsade Maxamed Aw Siciid oo la yiraahdo MST Foundation MST iyo danta guud iyo wararka kale la xiriira mar kale ayaan ka hadli doonaaye garoonka la dhagax dhigay iyo boorka garoonkii hore laga hortaagay waxay abuureen dareenka gadaal ka rumoobay ee ah in la qorsheeyay in garoonkii kubadda kolayga ee dhalinta la qaato mudaharaad ayaa arrinta laga sameeyay dhalin gadoodsan ayaa goobta timi boorkii meesha laga taagay ayaa qayb ahaan la jeexjeexay garoonka kubadda kolayga ayaa waxa lagu qabtay kulan lagaga soo horjeedo arrinta dhalintii ayaa wareeg loo qabtay garamaan iyo agab ciyaareed ayaa loo qaybiyay waxaana loo sheegay garoon cusub oo loo doona ha joogtee kooda in aan cid ugu yiminayn waxaan leenahay dhalinyarada iyo caruurta insha Allah goobihiina aad ku ciyaarasaan cidina qaadan mayso waan ku wada dadaalanaa idinkuna markaanu anagu haday taayadaba noqoto saasoo kale ugu dadaala jiilka dambe soo kici doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mas'uuliyiin iyo mudan kala duwan oo bulshada ah ayaa arrinta ka falceliyay Ibraahim Sultan Cabdiraxmaan oo leh sheeko xiiso leh oo isaga iyo dhalin la jirtay ay dib ugu dhiseen garoonkan hadda la fasaxay oo aan filayo sheekadaas dhiirigelintaahi in maalin la soo bandhigi doono ayaa arrintan qoraal uu ka sameeyay ciwaan uga dhigay dawladda dhexena ceeb ayay ku tahay qofka qaatayna ceeb ayay ku tahay xildhibaan Cabdikariin Maxamed oo golaha wakiilada ah ayaa isna qoraal uu hawsha kaga soo horjeedo ku daabacay ciwaankiisa Facebook waxaanu tilmaamay dhibaatada garoon la'aantu ku haysa dhalinta iyo muhiimadda garoomada iyo ciyaaraha waxa uu qoraalkaas ku yidhi xukuumaddu inta ay ka fikirayso inay ganacsatada raali geliso ha ka fikirto inay dhalinyarada iyo bulshada jilicsan u adeegto sidoo kale mudane golo deegaan Siciid Jaamac iyo dad kale ayaa ka soo horjeestay oo iyaguna ka hadlay xataa wariye Cabdisalaan Hereeri ayaa boggiisa Facebook soo dhigay qormo lagaga soo horjeedo in garoonka cid gaar ah qaadato ha yeeshee ololaha ugu weyn waxa qaatay dhalinyar uu ugu fadalacad yahay ciyaartooyga caanka ah ee Cabdikariin Maxamuud Guji waa uu garnaqsaday waxa uu la hadlay mas'uuliyiinta ay arrintani khusayso iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uu ka duraantay in garoonkaas dhalinta loo badbaadiyo waxa uu ku calaacalay in uu tabayo sheekhi u helanaa ka shaqaynta iyo ilaalinta danta guud ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ee Sheekh Aadan Siiro waxaanu baaqayga maanta ku socodsiinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maayirka caasimadda degmada Hargeysa waxa leenahay mudane madaxweyne waxaad noo jirtaa 1 kiiloomitir in ka yar dhalinyartii ku soo dooratay ee degmadaada ahayd kalgacaya xiisaha badan ku haysa haddana ku haysa waa qalad in goob ku jirta 1 kiiloomitir in ay ku dulman yihiin oo ay wixii goobtii ay ku ciyaariyeen ay dad gaari rabaan inay qorshaystaan midda labaadna waxaan ku socodsiinayaa maayirka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maayir waxaad ku ololeysay
reer Hargeysa maanta reer Hargeysa waxay ku leeyihiin mudana mooge noo hiili waxa ku soo waa dhalinyartii ku soo dooratay oo ku baaqaysa oo ka doonaysa ballanqaadyadii aad fulisay ee aad tiri waxaan ilaalinayaa goobaha danta guudka halkan waxay ka mid yihiin goobaha danta guudka dawladda hoosana xil gaar ah ka saaran mudana maayir mooge annagoo kula aqoonsan waxtarka iyo hawsha qaranka ee aad ka haysa caasimadda qurxinteeda tanina waxay ka mid tahay xilkaaga hawshaasi haddii aad baajiso waan kuugu mahad celinayna haddii kalena waxay ka hor imanaysaa ballanqaadadaadii hore aad noogu ballanqaaday waqtiga aad ololahaaga ku jirtay waxaan maanta degmada Ibraahim Koodbuur iyo dhammaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland uga digaya taaka kasta oo inaga sportskeena la inaga qaado waa mid kasta ka maqan oo aan shakhsi gaar ah iyo xaafad ku salaysnayn waxaanu dhammaantood baaqu dirnaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogan bay danta guud iyo xuquuqahooda gaarka ah ilaashadaan maanta xaafad ahaan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaanu tabnay Sheekh Aadan Siiro ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo waxaan baaq kale u dirayaa xildhibaanadii ka soo baxay golaha deegaanka ee xaafadan laga soo doortay ee golaha ku jira waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ama waxayd noqon kuwa abaalkii xaafadan ay ku lahayd celiya ama waxayd noqonaysaa kuwa dhaxdhaxaad ka noqdo oo hawlahooga gaarka wata nasiib darro intan oo dhan midina kama badbaadin garoonkii inuu gacan gaar ah ku dhaco madaxweynuhu waaba ka loo aanaynayo maayarkiina badbaadin waa hiilkii dhalintuna meel gaadhi waa mas'uulkii sheeganayay inuu golaha deegaanka degmada u fadhiyana waa ka sidan leh xildhibaan kasta degmu ka wakiil yahay degmadan Koodbuur wakiilka dawladda hoose u jooga waa aniga iyada ayaa u garatay inuu ganacsadahaasi meeshaasi uu manaafacadsado ilaa ay inta iyadu dawladdu ay uga baahnayso si kaawi dhalintii garoonka loo dhisay inay ku ciyaaraan baahi uma yaqaano miyaa hawsha se la waday ee ah in garoonka dib loo dhiso lafteedu miyaanay baahi ahayn intii mudan hadashay iyo intii dhalin ahayd ee garnaqsatay gar iyo dow midna lama marin ee waa la muquuniyey waxa lagu muquuniyey awooddii dawladdooda ee ku dhisnayd cashuurtooda waxaa ka xoog batay danaha ka dhaxeeya mas'uulka ay talada u dhiibteen iyo ganacsadaha iyaga dhexdooda ka macaashay inkasta oo la giriftamay haddana goor habeennimo ah ayaa cagaf la geliyey garoonkii dhalintu ku ciyaari jirtay duruufaha oo soo dhan anoo xeerinaya waxaan isku dayay inaanu hoos aanu wax ku saxno aan walaalkay ugu caqli celino danta guud aynu wada leenahay bulshada reer Hargeysana wada leeyihiin walaal kuma qurux badna adiga iyo qoyska sharafta aad ka soo jeedaa ee wax kale khayr qaba aanu kula raadin waqti badan baan galiyay dhinac walba waan ka soo wareegay xisbi ahaan baan u galnay xisbiga iyagii kulmiye oo aan waxaan ceeb bay ku tahay xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan aynu ka noqono garoon la bixiyaa oo shakhsi la siiyaa dan uma aha bulshadeena iyo xisbigeena wada hadal baan furnay dad badan oo waxgarada ayaa hawsha nagala shaqeynayay meel bay wax noo taagnaayeen nasiib darro wax aad iyo aad u fool xun oo bulshada reer Hargeysa ay dhibsadeen ayaa xalay dhacay saq dhexe oo sida la ii sheegay ku beegan 3 habeenimo ayaa cagaf la geliyay garoonkii Hargeysa lahayd muuqaalkan waxa aan duubay galabnimadkii 10kii bisha Oktoobar goor ay dhalintu garoonka ku ciyaarayso habeennimadkeediina cagaf ayaa la geliyay fooqii garoonka dulyimi ayaana loogu dawgalay fooqaas dheeri dhinac marka laga eego waa maalgashi iyo horumar magaalada u soo kordhay ha yeeshee 3 dhinac oo taban aan ku sheego fooqani markiisii hore waxa laga dhisay dhul dan guud ah oo ay dhalintu lahayd oo lagu qaban lahaa adeeg bulsho oo la wada leeyahay 2 fooqan iyo guryaha iyo geerashka ka dambeeyaba intuba waxay ka tirsanaayeen dhulkii dhalinta waxaanay cidhiidhiyeen wadadii dhanka waqooyi kaga iman jirtay ee xaafadda Jigjigayar oo waxa ay ka dhigeen luuq sidoo kale fooqani waxa uu duulaan ku noqday garoonkii dhalinyartu ku ciyaari jirtay ee uu goobta ugu yimid wax kasta oo ay ahaydba garoonkaasi socoy waxaas oo dan sheegad ah oo dhalintu ku garnaqsatay waxa ka xoog weynaaday danaha mas'uulka iyo ganacsadaha ka dhaxeeya aan ka gudbay halkan kalena waxay ahayd xanaanadii loo yaqaanay sahardiid ee xaafadda Jigjigayar oo dhalinta ku taalay waxay u adeegi jirtay bulsho kala duwan oo aaga ah haba ugu sii badnaadaan bulshada ku dhaqan xaafadda danyarta iyo isku raranta ah ee State House-ka wax kasta oo ay ahaydba
xanaanada lafteeda waa la dumiyey saxaafaddana kamaynaan maqal sababta bal qiyaas wiilka yar ee garoonkii uu ku ciyaarayey laga dumiyey ee laga yaabo inuu kubadda hami ka lahaa hamigiisiina halkaa lagu burburiyey loona sheegay inay daarta iyo ninka lacagta lehi ka mudan yihiin ama hooyada danyarta ah ee xanaanadii u dhoweyd ee loogu adeegi jiray laga dumiyey isla markaana aan lagu qancin sababta hadda garo oo dhulka marna garoon la dhiibayo marna xeeri la iibinayo marna xaafad la xaraashayo waa dhulkii ay ka tagtay dowladdii la riday ee Siyaad Barre marka soo xukuumaddeenu inooma sheegayso in Siyaad Barre uga lex jecel badnaa madaxweynaha hadda jooga marka la eego xagga danta guud inkasta oo magaaladu 4 goor ama 5 goor ka weynaatay intii lagaga qaxay 1988 haddana dhulkii xilligaas dowladdu ka tagtay ee adeegga dowladeed lagu qaban jiray aad ayuu u sii yaraaday waxa uu ku baxay gacanta mas'uuliyiintii kala dambeysay iyo ganacsatada hamuunta u qaba dhulkii la wada lahaa qiyaasteeda ha ugu badnaato inta ay xaraashtay xukuumadda hadda joogtay waxaan ka hadlayaa magaalada Hargeysa suquuqulka dhulkii lagu qaban lahaa adeegyada dowladda iyo baahida loo qabo helitaanka dhul dan guud oo dheeraad ah mar kale ayaan u dhiganayaa aan mid ka mid ah bulshada nugul ee barala'aanta ka joogto goob loogu adeego idin soo qabto halkani waa dugsiga kaliya ee dalka oo dhan ay ku leeyihiin ardayda aragga naafada ka ah dugsi ay leeyihiin maaha ee waa dugsi ay marti ku yihiin waxa uu ku dhex yaalaa dugsi la yiraahdo Sheekh Madar horena loo oran jiray Xuseen Giife dugsigan oo hore hay'adi gacanta ugu haysay oo guri kira ah deganaa ayaa sanado ka hor lagu soo wareejiyay gacanta dawladda ardaydii aragga naafada ka ahaydna waxa la dejiyay qayb ka mid ah dugsigan Xuseen Giife loo oran jiray mar kale ayaa laga raray oo waxa la geeyay dugsi sare oo la yiraahdo Suldaan Maxamed oo ku yaala masallaha galbeed oo xirmay dugsigani waxa uu ahaa masaafo ahaan mid aad ugu fog dadkan aragga naafada ka ah oo ku yaala meel cidla ah mar kale ayaa xaafadihii masalluhu u baahdeen dugsigii dibna waa loo furay ardaydii aragga naafada ka ahaydna mar kale waxa la doonay in meelo kale loo doono meermeer iyo in kolba meel afka loo saare kadib halkii ay ka tageen ayaa lagu soo celiyay waxa lagu soo celiyay goobtii hore oo markan hay'adda Faro dib u habeyn ku samaysay oo ay ugu tala gashay in wax loogu dhigo fasalada ardayda heerka loo yaqaano barbaarinta ama KG-ga sida aan ardayda macallimiinta iyo maamulkaba ka hayo haddana mar kale ayaa la doonay in fasaladan oo isu geyn 6 ah oo qaybna fasal ahaan ay u isticmaalaan qaybna ay xafiis ka dhigteen la yiraahdo haddana ka baxa oo qayb ahaan baneeya gaar ahaan intii Faro hagaajisay ayaamu qadiini ka qorshaystay kaligi qaraanu ragli waqti ay ku qaraxdaba qaxo kama fogaadi waqti ay ku qaraxdaba qaxo kama fogaadi